tan iyo markuu baahay muuqaalkan waxaa baraha bulshada qabsaday qayladhaan ka dhalatay gabar Soomaaliyeed oo la ciyaarayso nin ajnabi ah mid ka mid ah magaalooyinka waddankaasi ku yaal loona dalxiis tago oo la ciyaarayso ninkan hortiina ka muuqdo. dabcan waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso ninkan waa kuma. waa shakhsi caan ka ah baraha bulshada kaasoo lagu yaqaan qobka ciyaarka, wuxuuna inta badan iibiyaa jalaatada ice creamka si isaga u gaar ah ayuu u soo bandhigaa ganacsigiisa iyo macaamiishiisa faraxsan ee agtiisa ku ciyaaraysa in meelo badan adduunka laga barto. maxaa dhaliyay hadalhaynta Soomaalida dhexdeeda? waxaa baraha bulshada Soomaalida ku baahay muuqaalo hablo Soomaaliyeed la ciyaaraya ninkan, taasi oo dad badan ka caraysisay ayaa abuurtay dood ku aadan arrintan. dadka qaar ayaa ku dooday inay caadi tahay. ma ahan wax caadi ah, waa dhaqan xumo in gabar Soomaaliyeed goob fagaara ah nin ajnabi sidan ula ciyaarto oo waliba qaawan xitaa aan wadanin wax xijaab ah. run ahaantii waxaa ka hadlay dad ka mid ah fanaaniin iyo YouTubero barahooda bulshada ku sheegay inay aad ugu xumaadeen gabar Soomaaliyeed inay sidan ula ciyaarto. run ahaantii ma ahan wax saxan, waxa roon in laga fiirsado, waxay dhibaysaa ummadda Soomaaliyeed. dhanka kale dadka ku doodaya tanna ka soo horjeedo ayaa ku doodaya in qofku isaga xurriyad uu leeyahay, laakiin maya, waa gabar Soomaaliyeed inay waxaasi samayso waa wax laga xumaada. qasab ma aha hadaad meesha tagto inaad ninkan la ciyaarto, qofka isaga ayaa ciyaaro ama isaga ayaa iska diido, cid qasab kugu leh ma jirto. laakiin waxaa habboon inaad ka fiirsato wax adiga aad samaynayso, beri ubadkaaga ayay dhibaysaa. gabadhan waa gabar weyn, ma ahan ciyaal. waxaa laga yaabaa inay tahay hooyo. Soomaalinimada iyo dhaqankuna ma ahan wax la kala xigo. gabar walba Soomaali ah dembi haday gasho iyada ayaa loo cadaabaya, haday ceeb samaysana sharafteeda ayay ku weynaysaa. dadka qobka ciyaarka la sameeyo ninkan ma ahan Soomaali kaliya, waxaa sidoo kale ka mid ah dad kala duwan oo kala yimaada daafaha dunida. inta soo gaartay waxay ka dhigantahay inaad muuqaalkan dhamaysatay. muuqaalkan intaas ku eegyahay sida ay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.